maantana waxaan u socdaa maanta waa sabti waa maalmihii adeega la wada guranayay waa maalinta kaliya sabtidii xadda waa markaan fasaxanahay marka adeegii waxa la soo doonay suuqa bal nala arka waa waxay sabtida iyo xadda waa maalin adeeg marka la socod wanaagsan iidkii baa soo socda sooma marka ween ciyaalada alaabahoodii corona sidii u yimid waa ciidka labaada corona ina haysto oo aanay caruurtu iid fiican arkin sida ay tahay haddana dhar cusub iyo kabo cusub lagama maarmo meelihii lagu ciyaari jiray iyo waxa yaraaday maxaa la yiraahdaaye waxyaabo badan laakiin dharka weli sidii baan u iibsanaynaa iyo alaabtiiba waa la soo jabiyay bahalkan waa kii kaaga iyo cabitaanka labadaba lagu sameeysanayay oo ujeedaan lacagtaana laga soo dhigay taas loo soo raqiisay kaagaad ku samaysanaysaa cabitaankana waad ku shiidanaysaa yacni waa wixii oo dhan oo isla socda marka ka faa'iideysta gaalkaanba waxa asaas lagu buuqsan iyo loogu soo dareeray waxa waaye waxay ugu buuqsan yihiin oo ugu soo yaaceen waxa weeyaan ay ka faa'iideysanayaan maalinka la soo raqiisiyo oo la soo jabiyo bay ka faa'iideysanayaan caqli buu ku nool yahay gaalkaane wax kastoo qaaliya maalinta saan oo kale loo soo jabiyo intuu lacagta u urursado ayuu wax muhiima siisanaya xataa roodhidii iyadoo kulul maanta kana waa la soo wada jebiyey axaddan iyo sabtigan wax kale ugu dhex jiro oo baabo may dhahaan yacni waa maalin ciida ciidoodii camala waxbaa ku dhex jira marka waa dukaanka ugu weyn xaafadayada dukaankan
القرحان كشيء مع الفرمشيكا كل حيالله ما شاء الله. ما شاء الله حاول ملايين إنسان نعم هذا ماشي الله. maangahani waa Kenya Afrika laga soo xadaa. shan eera laga soo dhigay dadka aniga wadankan la jooga Finland ha ka faa'iideystaan. ما شاء الله dukaankan maanta wuu soo jeeyo dhown dhulku soo dhigay qudaar oo dhan wuu soo jibiyay. meelaha waxa la soo dhigaa waxa saasoo kale la soo jebiyo halka yara laga soo dhigo oo maalintii uu soo jebiyo soo dhiga. hadda tan waa ismaris halkan kala yaro ka soo dhiga. halka meelaha waxa lagu soo daadshaa waxyaabaha uu soo jebiyo dukaankani baa lagu soo daadiyaa. marka waxa la iyo wuxuu hal eera ka soo dhiga ama uu soo jebiyo meeshaan ku soo shuba. waxaas waa shaahi green tea ah oo dan oo meeshan ku soo shubo. shaahiya waxa ku jira oo la gado maxaa la yiraahdaa shashan eer iyo lix eer oo halkan hal eer lagu soo dhigay.
Dear customers, your safety and the safety of our staff is very important to us. Please use mask. Wash your hands before and after visiting the store. Cough into a tissue or your elbow. meelihii cuntada mooyaane maanta adduunka waaba xidhan yahayba iidkoodaanba maanta wax kale ku dhex jiraan malaa inuu jimci ku ekaaban malaynayay kumaba ekaba jimcihii adduunkiisaana qardab xataa aliisa meelihii taleefanada iyo shirkadihii waxaan ku idhi qartab albaabadaa loo jiiday karana suu dhacay ciddani marmarsiiyo inay adduunka xidhaan unbay u marmarsoodaano hal shaqsi dhex mari maayo magaaladii meeshii dukaamadii cuntada aan soo marnay uun baa furan laakiin meelihii dharka dukaanka dharka iyo kabaha iyo isku dhex jira mooyaane kuwii dharka khaaska u ahaa waa kuwa xidhan kafeteeriyadii sida kuraasidii loogu laabay balfeeriya meelihii shaaha laga cabeeyey kuraasidoodii saanaa loo gala waa la wada xitaa qofyuu ku nasanin baa la yidhi marka maanta sheekadu waa sidaan hoolkii weynaa meel laga maro la waayi jiray balsaa laga dhigay walaa ciddaan qaynuun inay leedahay cajiiba dukaamadii waa kuwaa dharku saasay u xidhan yihiin holane waaye hadda kan kii ciyaalka iyo dumarka iyo haweenka iyo raggaba dee waa xidhan yahay meel walba waxaan ku idhi qartab haddaan qaynuun saa u haysano oo marka la yidhaaha magaalada hal la xidho hal mar saas aan u xidhi lahay cajiib innaga ayaa wax maqlaayaba horta dadkiiba wax maqli maayaane maxaa la xidhaa magaalooyinka marka meesha saasay u xidhan tahay albaabada kafeteeri wey hadda halkani waana tasaas albaabka loogu xiray dukaanka dharka qabd meelihii waxaan ku odhi magaaladu marka la xidhay qurux badan tahay soo ma oo saxmad yarta abadan jimcaha waxbaa ku dhex jira jimcaha unbay fasaxaayeen sabtidii iyo xaddina waa taa lagu daray berrina waa xidhan tahay maantana waa xidhan tahay marka ilaahay sharkooda haynaga duwa gaaladan waa iskaga dhex nool nima yaamin baa yidhi wayaaba bal ciddu say u xirtay dee meesha ya waa la xidhay waanan waxaa dhex maraya waa carab iyo soomaali ciddii waddanka lahayd waa xerood ilaa magaaladu inay xidhantay way ogyihiin oo iska xeroodeen marka dee dadkii magaalada hadday xeroodeen innagana waynaan ka daba xeroonnaa sooma tiifiyada iyo aan dhegaysano la iska xeroodo waxaa dukaan qudaar iyo caano iyo raashin gadaya waa wada furan yihin laakiin kuwii kale maryaha iyo adduunyo gadaya waa xidhan yihiinay iska xidhan yihin marka maanta falowgeenani intaanu ku soo dhammaanaya sababtu tahay dee magaalo xidhan waxba kama qaadayno berrina waa xidhanta isniin baan arki doonaa siday noqoto xaaladdu isniinta haddii ilahay qadaro isniintaan isla soconaynaa
dee la socod wanaagsan maanta magaalo xidhan ma ku soo dhex dhacnay awal tiifigii xasaa la shidi jiran ka arki jirnay maba shidinba wallaahi maanta ma eeginba dabeedna waa taas magaaladii iyadoo xiran aan ku soo dhex dhacnay yaa iyadoo xiran baan ku soo dhex dhacnay khayr bay noqon doontaa